بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto oo aan ummadda Soomaaliyeed aan ugu bidhaamiyo, aan tuso farta ugu fiiqo, u tilmaamo khaladaadka nimankan khawaarijta ah ee daacadii Ilaahayna ka baxay, daacadii rasuulkana ka baxay, ee ummadda Soomaaliyeed u been hawaaseeya ayaguna ay u arkaan mashaayikh ama culummo diinta يعني faafinayso isla mar ahaantaana ay yihiin dad aan diintooda lagu kalsoonaan karin. maxaa yeelay qofka waxa laga rabaa marka uu diinta sheegayo inuu yahay qof run ku astaansan iyo sheegidda runta. maxaa yeelay qofka culummada ah markii culummo la leeyahay waxa uu noqonayaa qof raaca rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh, tilaabooyinkiisii qof qaaday inuu noqdaa la rabaa. sida ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana uu ku leeyahay لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسولك إلهي واحد إذن كوسو نعطي ضياشا ونأكسن إنات كضياتان رسولك صلوات الله وسلام عليه يا كضيانا هيو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معناها قفك إلهي رجينا يلا كلن كيس سبحانه وتعالى يما لنت قيامو إن أكبد باذو لباتوينك يا مصيبوينك كدع دونا ميشاس oo ah xisaabka adag ee xaaladdu ay noqonayso gabadha uurka leh lagu miisaaliyay, ilaahay ku miisaaliyay haddii uur sidayna ay ridayso, hadday gabadha hooyada ay wax nuujinayso nuujinteedina cunugii meel allaala meel ay ku turta aysan garanayn. macnaha xaaladda xanuunka leh oo dhibka leh oo shiddada leh maalinka ayada qofka ilaahay rajaynaya oo ilaahay ka rajaynaya inuu badbaadiyo, ilaahay ka rajaynaya midigta inuu kitaabkiisa ka siiyo, ilaahay ka rajaynaya wax badan oo khayr ah iyo rasuulka maciisa inuu noqdo, xawdka inuu ka waraabo, siraadka inuu kal barqil khaadifi ku maro bigayr xisaab kuwa ah inuu galo, xisaab aan aad loogu xil dheeraan xisaabtiisa, cafi inuu helo maalinta qiyaamo. dee qofka rajaynaya maalinta qiyaamo noocaasa wadakara allah kathiiran, in badanna ilaahay xusay, qofka asaga ah wuxuu ku dayanayaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. haddaba rasuulka muxuu uga dayanayaa? rasuulka wuxuu uga dayanayaa runta ayuu uga dayanayaa. runta diinta markaad sheegaysid, diinta waxaa la rabaa inaad ka run sheegtid. ilaahay wuxuu yidhahday subxaanahu wa tacaala asagoo nebiyullaahi moxamed yacni taskiyeynahaya oo wanaaggiisa iyo sharafkiisa bannaanka keenahaya, wuxuu yidhaahday wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa. nebi moxamed ma ahan salawaatullaahi wasalaamu calayh nin hawadiisa idinkaga sheekaynaya ma ahan, oo wuxuu ku hadlaaya ma ahan wax hawadiisa ah, waxuu idin sheegaya hawadiisa maahan, wuxuu iska jeclaysta maahan, waxay la tahay maahan. in huwa ilaa waxyun yuuxa, waa waxyi baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, wax kale maahan, waa waxyi. waxa uu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh idiin soo gudbinayo rabbigiin xaggiisa idinkaga gudbinayo. marka qofka marka uu yahay qof culummo ah, diinkiisa iyo dayaanadiisa ayaa la aaminahayaa, oo qofku wuxuu ku aaminahayaa naftiisa. maxaa yeelay diintu waa priority-ga koowaad, waa diintaada waay. marka qof marka asagaba diintii ka been sheegayo aaminkiisu aad bay u yartay, maba la aamini karaba. maxaa yeelay qof been badan oo maanta saan ku jawaabayo oo berri saan ku jawaabayo oo saa dambe saan ku jawaabayo oo saakuun saan ku jawaabayo, nin dayaanadiisaba ay toosan tahay maahan. maxaa yeelay waxa uu ka hadlayo iyo waxa uu ka jawaabahaya baa waxay tahay hawadiisa wey, ma ahan diin, ma ahane waa hawo. waxa uu jecel yahay iyo wuxuu jeclaystay waxa ka hadlaya. marka taasaad waxaa ku ogaanaysaa qofka mar walbaba su'aasha sanad walbaba su'aashii la weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo inay kala bedelan yihiin, oo tii shalay uu lahaa mid khilaafsan oo maanta dhahayo. maxaa yeelay ma ahan hadaf diini ah iyo mabda' diini oo qofka uu ku socdee hawadiisu ku socdaa. maanta wuxuu jeclaystuu iska dhahayaa, beri wuxuu jeclaystuu iska dhahayaa. diintuna sidaas ma ahan. ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo la hadlayo dadka muslimiinta oo waliba mu'miniinta, yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wakunuu maca asaadiqiin baa ilaahay yidhaahday. war qoladii yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow ittaquu allah, ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala, ilaahay cabsidiisa ha laydinka helo, wakunuu maca asaadiqiin, kuwa runta sheegaya macooda noqda. marka haddaad aragtid nin 10 jeer isbedelahayo, diintiisa lama aamini karo. nimankan khawaarijta wahaabiyada diintooda lama aamini karo, waa been hawaasiyo, ra'yigooda iyo hawadooda unbay ka hadlaan, waa afmiinshaaro. afmiinshaarnimada yaysan kugu gaadin, yaysan kugu dagin. culummo ma ahan, culummo oo ekayaal wey, ma ahan culummo ma ahan, waa wadaad xumayaal wey,
yaysan ku sirin ha ku sirmin ha ku dagmin boqol jeer quraanka ha akhriyaan salaada ha tujiyaan kutubaha ha akhriyaan qofkaas wax macnaa u leeyahay malaha xagga diinta miisaan kuma lahan waaragtay kutubta waaragtay ma maqasheen xadiis leeyahay xadiis hebel waa daciif xadiis hebel waa daciif maxaa daciif lagu dhahay waxa weeye qofka hadii يعني هدي على كورة لو أركو حيوان فرس أصلا ده أو ويل امتى حتى كلها يعني علماء الوحي جارين إنه حتى دين تكقاعد إيه سواء بكرة رسن عالم كستوية حيا لسيلو آمنها يا حيوان متسرها يا أو بين وشيء هي دين تاسيو آمنيسا هل كاس اللي جار دين سيد الله إلى لنا هي دين الإسلام سيد الله إلى لنا هل كاس اللي جار فالمين كان هذا إلى الدعوة أنت هذا oo iskoordada ah oo shalay wax uu leeyahay oo daraad wax leeyahay oo tikores wax uu leeyahay bal fiiri adigan ku deynayaa marka inaad xukuntid ninkan waxa uu yahay adiga xukun waa kan umul injiree bal ila daawo صفرات الأصل وفي علوم المسلمين وتأصيليا واحد صومالي كتير واحد وديال حقه واجهات شرعية مسلمين تواني قارض الله تقالوا وانا إني دول قوضة كسارا ويكحريا حتى مددع عليه حتى قبائل هذا لا تقالوا قبائل هذا لا كرسيما المسلمين بحر تقالوا وقالوا لكن هدول دقالكم نقضوا مسلمين دحضر waxay ku dagaalamayaan ay tahay markaasi adduunyo iyo manaasib ay ku dagaalamayaan markaasi dagaalku wuxuu noqonayaa xarbul fitna waana mid nusuustu qeexday way ninkii gaala soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay illa la dagaalamo iska dhaafi meel alla meeshii lagu arkaa lagu dili karaa istiidaan la weydiin maayo dilkiisa ila laga weydiinay ma jirto ilaahay baa fasaxay subhanahu wa ta'ala in la dil karo ruuxa gaalada wilaaya siiya inuu gaaloobayo oo murtad noqonayo diinta ka baxayo وانا سيدة ظاهر القرآن كموتشينيو سيدة ربي سبحانه وتعالى آيات كلام كله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء حبي إلهي إيه النبي يوحي اللي قصوا دجي رميسيهين مين الأولياء كدكتين قالوا حبي الرميسيهين الله رسول كيسا إيه كتاب كي اللي قصوا دجي هبي الرميسيهين رميسلان بقى قالوا مين الأولياء كدكتين لولا سيمركا ما كل مكران ولا دقا باطم عيني ويقولوا سلوسا وحر الرابيان ويلهلان مايا هم مايا حقا كرسي أمبا هيم ويروح ما قالوا بي كرسي ضعوي شيخ كذا دتك خوارج أنا قلنا يروح يقول لي مايا ماشي واحد شيء وندي سيدي وند ليسوا حيستوي ماشي لك شيء يروح يقول لي مايا وجاهل وروح حاسي واحد جرمه سؤال وحويان إن روح مسلم إذا قالوا الراعو وضد مسلمين ولا دقالمو أما عادوا أنتوا صرع مسلمين لا دقالمو بمبرنات من زمان حكم كده حوي جوابت وحويان إنه خلبيه هاي والدم بيكون شيء ولا اسمه فصيل خلاف وحو كتشاغي هاي ما كو غالوبيا ميس كو غالوبي ماي مبادئ الدين لا تنازلين حق يا لا تنازلين كتابك الله يا سنه النبي مطالبه يا لا تنازلين فان يا مفخره يا وناج معها قالك اقدواشيسو قال لما مصلحتها اكشقين مايو كل بلد وحويان ان دلك iyo dadku ay nidaam iyo kala dambeyn dawlad leeyihiin hadii labadii maqsad mid la waayo ama mid adkaado oo yani ruuxa muslimka ah inta tabartiisu mukallaf ku yahay kii kala hal wala dhihi maayo oo dawladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta إن هلاي وضرورة نمشي أو بعد مثلا شرعي يوم القانون الدستور اللي بدته وشيء كلية الرسم اللي هو بذلك رؤية عالم الإسلامي ومن تهدى خسارنا ويني ما هي النظام خسارنا وكلا ضمنت الخسارة ودول المدن الخسارة وحوي الإسلام الخسارة شرع ما حاربنا لكن ذكر لا كيسان وادتك اللي هو كي ويردين إلى يكون كذا وحي كذا قال لي بودين لا يكون صدق ما وحلا كذا قال لي أنت سلوا أردينا كتاب الله يوصلون كتلمين سنة النبي محمد يوم بدأ تلمين دستور كي رجال بيت فرنسيسي يوم هاي أمريكا يوم إنجليز كانوا يقولوا ديمقراطية علمانية كتلسو دي والله سلام كذا إلهي دينتي سمحت وتدعي مرة وحتى هذا قال صراحة ولا قال قال سنين ولا المسلم حبك كردي ولا ديك سلام دارين كلية إن الدين إلهي يسمح لكم الدينيين أنت قال ما قلت حتى هذين الحركات أقاتشني لكن ماشي سووا كتب الدين إلهي يسمح لكم وكتاب إلهي ما تنكر وسنة النبي ما تنكر هو واحد لقيت قالوا أدونك واحد ما يكرم ما أنت مرة يا يدقها يدي على الدنيا يقولوا على كل مرة سلكوا في زوجتي يمد عليك غلط ماشي أصلا قالوا أنت أصلا كافر فيه مرتك وردت أفرتان صراء يكبرا إيا علماء كورسي مدة دير بأمد وحا لدي تربييني كتاب إلهي لقمنا تنازلي كرو بدلا إساقاهنا لما قارن كرو بعد هذه المدة المديدة إيا تربية مدة دير قادتي فما أنت وحا لنا همئها مدة دير بعدين كتشريه دولة حتى علمانية دين لها هيسكتي مادو يا كريم يا كريم دولة علمانية دين لها هاتي مادو بيك الله يسترع أن كبه دلنا كتاب إلهي إيا السنة الذين عالم كان لقب ما يمان تلا يسكنين بقي كرام عجائب من الغرائب ما أنت واحد تاجنتها أمام الملأ ومشهد النبي يقول صلى الله عليه وسلم فتنة نيكو هدو التلابة قابو أيضا واحد أصول قابا إنتو قابا إنك السياسة
matahaadkaa dadkii ka shaqeeyey garabooday maanta waxay taagan yihiin caalamkoo dhan oo daawanaya inay ilaahay magacyadiisa ku dhaartaan inay daacad u yihiin nidaamka iyo dastuurkii ay gaaladu dejisay dowladda ku meel gaarku sheegay ay dejisatay inay daacad u yihiin bay ku dhaaranayaan amaama almala yaa kariim war dadka wadadaa ku jira oo niman gablaa ku jira oo qaar diin sheeganayaa ku jira oo qaar baa meelaha ka taageersan war dastuur ilxaadiya oo ilaahay diintiisa ka hor jeeda markaad ku dhaaranayso waxaan u ahay daacad baan u ahay iimaankaagii aawey islaamnimadaadii aawey diintii aawey aakhiradii aawey waxyaalaha ka hor muuqda masalada ku saabsan horta dastuur waa ka alle laakiin dastuurka alle kolba intii la kari karo awooddu saamaxdo baa mukallaf lagu yahay wixii awooddu diido takaaliifta kale shareecada buu la mid yahay oo markaasi ma laazimayo maanta waxaan ogsoonnahay caalamka gaala haysato awood bay ku haystaan ilahay baa awood leh dowlado waaweyn oo soomaaliya qeyrkeedba ka xoog badan baan ku dhawaaqi karin shareeca islaam baan isku xukumayna waaqic yaalla in wax lagu qaybsado waa laga maarmaan ayagoon ku dhawaaqin bimujarad dad wadaada ahaan ah ay kursiga yimaadeen shareecaba lama bedelinba baad ogtihiin waxyaalihii wixii ka dhacay soo ma socota dimuqraatiyadu ka mabda waa diin gaalnimo ah laanna waa mabda caqiidadiisa wata oo akhlaaqdiisa wata oo nidaamka shuruucdiisa wata oo dowladdiisa wata oo ilxaadi oo diinta ka fog waay waa dimuqraatiya haddaad maqasho laanna dimuqraatiya maxaa la yidhahdaa dimuqraatiya waxaa la yidhahdaa xukmu shacbi lishacbi baa la yidhahdaa shacabka oo isxukuma ayaa la yidhahdaa maxaa laga wadaa shacabku wuxuu doortaa xubnaha baarlamaankana waxaa la yidhahdaa golaha sharci dejinta xalaalayn iyo xaaraamayn isagaa sameeya shuruucduu goluhu dejiyana shacabkaa lagu xukumaa innaga diinteenna markii la yidhahdo xalaalayn iyo xaaraamayn yaa iska leh ya allah baa iska leh soo ma sidaas daraaddeed baarlamaanka waxa la yidhahdo dimuqraatiyadu ka mabda' dhammaystiran waa gaalnimo culimada islamka waa ku munaasaba